jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta waxa loogu soo xilay tababar in ka badan 6,000 oo ka mid ah ciidamada jamhuuriyadda Somaliland oo si adag u tababaran kuwaasoo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan oo dhintaan. goobta lagu soo xidhayay tababarkaasi oo ahayd xarunta OOG ee taliska ciidamada qaranka gaar ahaan bariga difaaca jiidaha hore ayaa waxa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland, wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Somaliland, saraakiil iyo haldoor tiro badan. ciidamadan ayaa halkaasi waxaa kala hadlay isla markaana baabooyin wax ku oo la siiyay taliyaha ciidamada qaranka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo haldoorkii kale halkaas ka hadlay. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland meel walba ay joogaan waxa ay diyaar u yihiin in ay dalkooda iyo dadkooda difaacaan. cududda ciidan halkaasi lagu soo bandhigay ayaa ah qayb kaliya oo hadda tababar la soo xidhay waxayna diyaar u yihiin in ay dadkooda iyo dalkooda difaacaan. ciidamada halkan tababarka lagu soo xidhay ayaa bartay qaababka kala duwan ee militariga oo ah niman si adag u tababartay waxayna ku gaashaaman yihiin dhammaan qalabka kala duwan ee ciidanka iyagoo dhulka la simaya cid walba oo soo eegta.